maleeshiyaadka M23 oo diyaar u ah inay ka baxaan bariga DRC. Falagada M23 ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay ka baxdo dhulka ay qabsadeen ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ee DRC. Waxa ay sheegeen inay taageerayaan dadaalada nabad raadinta ee gobolka, inkastoo aan lagu metelin wadahadallada socda ee xil loogu raadinayo xasilloonida bariga DRC. Afhayeenka falagada M23 ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay diyaar u yihiin wadahadal toos ah oo ay la yeelanayaan xukuumadda DRC si xal waara looga helo sababaha keenay dagaalka dabadheeraaday ee bariga dalkaasi. Waxa uu intaasi ku daray in kooxdooda ay doonayso inay kulan la yeelato ciidamada ka socda gobolka ee la geeyay halkaasi si ay uga wada hadlaan dhaqangelinta xabad joojinta. Dhanka kale, wakaaladda wararka ee AFP ayaa ku waramaysa inay socdaan iska horimaadyo u dhexeeya ciidamada dowladda ee DRC iyo dagaalyahanada M23 meel u dhow magaalada Goma ee waqooyiga gobolka Kivu ee waddankaasi. Xukuumadda Kinshasa ayaa dowladda Rwanda ku eedeysay inay falagada M23 ay siiso taageero. Hase ahaatee, dhigeeda Kigali ayaa dhankeeda ku eedeysay DRC inay gacan sare la leedahay jabhaddii FDLR ee Hutu, kuwaasi oo laga aasaasay DRC kadib xasuuqii bulshada Tutsiga ee sanadkii 1994 ka dhacday dalkaasi Rwanda.